taariikhdu markaad 1907 waxa dhacday in Mareykanku guud ahaan dhaqaalihiisu dhulka galo laakiin arrintii la yaab kale ay ahayd inuu hal nin u soo istaagay sidii uu badbaadin lahaa guud ahaan Mareykanka ninkaasoo sida aad filaysaa aan ahayn madaxweyne ama siyaasi haddaba sidoo ninka lagu magacaabo JP Morgan uu gacantiisa ugu bedelay guud ahaan Mareykanka sidoo kalena uu dhisay 3 boqortooyo oo waaweyn kuwaasoo ilaa maanta dunida ka jira kadib dhimashadiisii 100 sano kadib sidoo kale sidoo ninkan markay ay dawladdu soo istaagtay dhaqaale la'aan uu asagu ahaa mid lacagtiisu ay sii kordhaba haddaba sheekada ninkan ayaa ah mid la yaab leh iyo sidoo uu ku noqday ninka ugu awoodda badan Mareykanka oo dhan haddaba ninkan lagu magacaabo John Bernard Morgan ayaa dhashay taariikhda markay 17 Abriil 1837 asagoona ku dhashay magaalo lagu magacaabo Connecticut asagoona sidoo kale ninkan ka dhashay family hantiilayaal ah sidoo kalena waqtigaas awood ku lahaa wadankiisa haddaba John Abi ayaa lagu magacaabay Junius Spencer Morgan ninkan oo ahaa ganacsade weyn sidoo kalena ahaa bangiile laga yaqaan Mareykanka iyo sidoo kale guud ahaan Yurub sida yaataba dhanka kale John ayaa yaraantiisii ku raaxaysan noloshaas maalqabeennimada ay qoyskiisu u dhiseen asagoona waqtigaas yaraantiisa mid bukaan sidoo kalena qabay cudurka qalalka iyo waliba cudurro kale kuwaasoo qaarkood ay ahaayeen kuwa ka soo muuqday wejigiisa haddaba daawalaanta waqtigaas jirtay awgeed waxa dhacday in xanuunadii wiilkan yar ay ka sii daraan midoona ka dhigtay in sankiisu mar ka sii dambeysay si bedel xanuunkaas darteed midoona yaraankii Morgan ka dhex saartay caruurtii daadiisa ahayd asagoona mar walba ah mid keligii ah sidoo kalena isku madadaaliyay waxbarashada sida yaataba ninkan ayaa markay waxbarashada timaado ah mid aad ugu fiicnaa asagoona sidoo kale aad u dadaali jiray heer uu gaadhay in macallimiintiisa uu la tartamaba haddaba John markuu gaadhay 15 Abi ayaa ahaa mid u diray jasiirad lagu magacaabay Azores waliba asaga keligii si uu xanuunkaas halkaas ugu daaweysmo maadaama uu Abi ahaa mid aaminsanaa in xanuunka John ay u baahan yahay cimilada meeshaas ayadoona John ahaa mid kelinimadaas ka soo qaatay muddo sanado ah midoona sidoo kale la sheegay in aabaha John uu kala qorshe kale iyo in uu wiilkiisa u tababaray sida ugu noolaan lahaa kelinimada haddaba markii la gaadhay 1854 John Abi Junius ayaa ahaa mid heshiis la saxeexday banki lagu magacaabay George's Beaver and Company bankigan oo ku yaala magaalada London midoona ku qasabtay in sidoo kale familkii Morgan ay soo degaan magaalada London laakiin John oo waqtigaas ah 17 sano ayaan ahayn mid sii jooga asagoona isla markiiba uu Abi ahaa mid u diray boarding laga lahaa wadanka Switzerland kaasoo ku yaala meel lagu magacaabay Lake Geneva si uu halkaas waxbarashadiisa uga sii wato sida yaataba ugu dambeyntii marka uu John waxbarashadiisii u soo dhamaatay waxa uu isla markiiba diyaar u noqday sidii uu meel uga soo saari lahaa asagoona nasiib wanaag xidhiidhada uu Abi lahaa awgeed shaqo kaga helay shirkad bangi oo ku taalay wadanka Mareykanka asagoona shaqadiisu markaas ay sidii uu xog dhameystiran oo ku saabsan Mareykanka iyo waxa ka socda ugu soo gudbin lahaa Abi iyo sidoo kale London shaqadan oo ugu dambeyntii yaraankii John si awood iyo sidoo kale khibrad danka ganacsiga ah haddaba ugu dambeyntii John ayaa bilaabay in hamigiisa uu kor noqdo asagoona 1861 bilaabay in company-giisa uu asaasto company-gaasuna ugu magac daray J. Bernard Morgan and Company asagoona sidoo kale isla waqtiyadaas ay indhihiisa soo qabteen gabadhan oo lagu magacaabayay Emily Aristarchus gabadhan oo sidoo kale ka soo jeeday qoys hantiilayaal ah waxay haataba isla bilihii xiga John ayaa bilaabay in gabadhii uu guur soo bandhigto asagoona bilaabay in faa'iidadii company-gu Emily ugu soo iibiyo faraanti qaali ah waxay haataba laakiin guurkaas ayaa noqon sidii uu qof walba filanayay ayadoona gabadhii isla waqtiyadaas buu xanuun ku soo booday ilaa heer ay awood weydaba inay aroos gasho laakiin dhanka kale John ayaa ahaa mid aan arrintii aqbalin ayagoona ugu dambeyntii aroos October 1861 waliba iyadoo sidii u xanuunsanaysa haddaba guurkii kadib John ayaa bilaabay sidii uu daaweysan lahaa xaaskiisan asagoona bilaabay inuu hawagadi u sameeyo sidoo kalena uu soo wareejiyay Algiers halkaasuna bilaabay inuu suuq kana dhaqaatiir waliba kuwoodii ugu wanaagsanaa haddaba saaxiibayaal qof walba channelka cusub magacaygu waa Zaki Shaafi halkan waxaan ku soo gudbiyaa muuqaalo isugu jira documentary iyo sidoo kale ganacsi haddaba haddaadan hore nagu soo biirin fadlan hadda ilaawin aad nagu soo biirto sidoo kalena channelka subscribe saarato sidoo kale haddaad ka mid tahay asxaabtii hore noogu xidhneed ha ilaawin in sidoo kale notification-ku mar walba ku furnaado si aan u sii wada soconno aanu guda galno muuqaalkeenan laakiin waxaasoo dhan waxa maysan u qabanin ayadoo nolol sheegay in xaaskiisu ay qabto cudurka loo yaqaan tuberculosis ama TB-da cudurkan oo waqtigaas ah dilaa sidoo kalena aan wax daawo lahayn ayadoona ugu dambeyntii cudurkii la dhimatay kaliya 4 bilood kadib arooskoodii ayadoona geeridaas ay John saameyn weyn ku yeelatay heer uu gaaray inuu naftiisa ku ciqaabo shaqo joogto ah asagoona habeen iyo maalin bay enerjigiisa oo dhan isugu geeyay shaqadaas oo kaliya asagoona sidoo kale ah mid company-giisa iyo bangigiisa kursi qaada dhanka kale waxa sidoo kale waqtigaas qarxay dagaalkii sukayay ee Mareykanka ayadoona waqtigaas ay bilaabatay in amar lagu bixiyo in dhammaan rag u dhaxeeyay 20 sano ilaa 45 sano ay dagaalkii ka qayb galaan laakiin John ayaa ahaa mid dagaalkaas iyo hawlahaas aan waqti u haynin asagoona sameeyay sidii ay dadkii maalqabeennada ay waqtigaas ay sameyn jireen sida raggii aan hore uga soo hadalnay Rockefeller iyo sidoo kale Andrew Carnegie oo ahaa in booskiisa uu gato sidoo kalena uu shakhsi kale ku buuxiyo booskiisa midan oo waqtigaas loo ogolaa
midda kale la yaab kale ayaa ahayd in John uu fursad weyn ka dhex arkay dagaalkii dhexdiisa asagoona bilaabay in qoriyada la isku dagaalayay uu ganacsi ka dhex sameeyo haddaba ninkan oo ahaa lawyer sidoo kalena lagu magacaabay Simon Stevens ayaa u soo jeediyay John qorshaha inuu deemiyo lacag gaadhaysa $20,000 lacagtaas uu soo celin doono waliba iyadoo dulsaarkeeda wadata haddaba qorshaha ayaa ahaa in lacagtaas lagu soo iibiyo 5,000 oo qoryo qadiimi ah kuwaas oo ay soo siisanayaan midkiiba $3 ayagoona qoryahaas dib habayn ku sameyn doona sidoo kalena isla dawladii kaga iibin doona lacag gaadhaysa $22 midkiiba waxay yaataba laakiin arrintan ay kala kulmi doonaan dhibaato iyo sidoo kale in lagu tilmaamo khiyaanoolooyin dhanka kale isla 1864 John ayaa markale la kulmay xaaskiisii mustaqbalka taasoo lagu magacaabay Francis Louisa ayagoona isla dhamaadkii 1864 halkii ku aqalgalay ayadoona sanadkoodii koowaad ay u dhalatay gabadhoodii ugu horeysay ee lagu magacaabay Louisa isla 2 sano kadibna uu dhashay wiilkoodii lagu magacaabay JP Morgan Jr dhanka kale waqtigaas dhaqaalihii Mareykanka ayaa mid kor u kac sameeyay ayadoona dad badan ay ahaayeen kuwa sida yahay uga faa'iideystay sida raggii lagu magacaabay Carnegie iyo Rockefeller sida yaataba John ayaa sidoo kale diyaar u ah sidii uu asaguna meel isku soo saari lahaa ayadoona 1871 booskii soo galay ninkii lagu magacaabay Anthony Drexel ninkan oo ahaa banker sidoo kalena ay aad isku yaqaaneen John abihi ayagoona labadan nin si wada jir oo furtay bangiyada ganacsi ee qaaska ah kaas oo ay ugu magac dareen Drexel Morgan and Company haddaba John iyo kambanigiisan cusub ayaan wax waqti ah luminin ayagoona isla markiiba howlgalay sidii ay ula wareegi lahaayeen kambaniyada jidadka tareenada ee waqtigaas kambaniyadaas oo ah kuwa dhaqaalaha Mareykanku waqtigaas aad ugu tiirsanaa haddaba sababta uu ku doortay ayaa ahayd in kambaniyada badankooda ay waqtigaas ahaayeen kuwa hal shaqsi u taliyo sidoo kalena loogu yimaado tusaale ahaan Rockefeller uu ahaa mid xoog ku haystay ganacsiga saliidda halka ganacsiga birta sidoo kale ahaa mid xoog ku haystay Carnegie laakiin sidaa dhadigeed ganacsiga jidadka tareemada ayaa mid uu ka jiray tartan aad u adag ayadoona ay jireen shirkado aad u badan kuwaas oo wali mid kale uu ka soo horjeeday haddaba John fikradiisan ayaa ay sidoo kambaniyadaas oo dhan uu hal xukun u hoskeeni lahaa asagoona bilaabay inuu kolba mid maalgeliyo sidoo kalena uu maamulkoodii kolba mid meesha ka saaro sidaas darteedna uu dhammaantoodba hoostiisa keeno ayadoona ugu dambeyntii fikradaas ay la isku keeneen ganacsiyada yaryar sidoo kalena laga soo saar hal ganacsi oo weyn oo ninkani aad caan ugu noqday heer lagu labo magaciisa sidoo kalena loo bixiyo Morganization ayadoona sidoo kale uu gaaray ninkan heer ay hoos yimaadaan in ka badan 60% kambaniyada tareemada oo dhan asagoona sidoo kale markay kambaniyada yaryar ee tareemada ay ugu yimaadaan si uu u maalgeliyo ku qasbi jiray in ay asagu hoos yimaadaan marka hore midanoona marba marka si dambaysa John siinaysay awood kale dhanka kale taariikhdu markii 1890 John abihi ayaa mid shil ku dhintay haddaba inkastoo shilkan ahaa war naxdin ku ah John haddana sidaas dhan uma sii xumeyn ayadoona John uu halkii ku dhaxlay sheer gaadhay $15 milyan kaasoo abihi ka tagay ayadoona sidoo kale John uu markan xorriyad u heli doono si allaale sida uu rabo inuu lacagtaas u isticmaalo ayadoona waqtiyadii hore uu John mid waxoogaa cadaadis kala kulmi jiray abihi marka ay noqoto ganacsiga iyo sidoo kale inuu qaadi karo tallaabooyin halis ah laakiin maqnaashaha abihi John ay markale fursadii xorriyadda u soo laabatay xorriyadaas oo waliba ganacsi allaale ganacsiga uu rabo ku gali karo dhanka kale markii la gaaray 9-meydii John ayaa bilaabay hirgelinta mashruucii ugu weyn waqtigaas mashruucaas oo ah la wareegidii ganacsiga birta Mareykanka oo dhan haddaba taariikhdu markii 1901 ganacsiga birta ee Carnegie ayaa mid xawli ku socday ayadoona ganacsigan uu markan ku jiray mid kamid ah ganacsiyadii waqtigaas ugu waaweynaa dunida laakiin dhanka kale Carnegie ayaa mid waqtigaas diyaar u ah inuu iska iibiyo boqortooyadaas haddaba su'aasha waqtigaas taagneed ayaa ahayd waa kuma geesiga ku dhacay inuu ka bixiyo kambanigaas lacag gaadhaysa $480 milyan haddaba waa meesha uu ka soo galay ninkii lagu magacaabay John asagoona si aysan ka labayn ku jirin ku iibsaday kambanigii qiimo gaadhay $480 milyan dealkaasona waqtigaas noqday dealkii ugu weynaa ayadoona midan ay ahayd oo kaliya bilow haddaba intaas kadib John waxa uu sidoo kale kambanigii birta ku lamaanay kambaniyo kale oo ayaguna birta soo saarayay asagoona halkii ka soo saaray kambaniga qiimihiisa ku fadhiyay $1 bilyan asagoona JP ay awoodiisu markan noqotay mid aan waxba laga qaban karin maadaama labadii industry ugu waaweynaa waqtigaas Mareykanka ee birta iyo tareemada uu ahaa mid gacantiisa ay ku jireen dhanka kale dadkii ayaa kuwa bilaabay inay isla dhaxmaraan xanta in ninkan uu la wareegi doono dhammaan Ameerika oo dhan haddaba dadka ay xantaas si fiican dhagooda ugu dhacaysa ayaa ka mid ah madaxweynihii Mareykanka waqtigaas ee Roosevelt laakiin nasiib xumo wax yar kadib waxa bilowday dhibaatooyinkii dhaqaale haddaba markii la gaaray 1907 wadankii Mareykanka ayaa galay xaalad dhaqaale darro aad u xumeyd taasoo kaliftay in xitaa bangiyo badan albaabada loo xidho ayadoona sidoo kale ay dadkii bilaabeen in lacagoodii ay kala baxaan dhammaan bangiyadii midanoona dhibaato weyn wadankii ku ahayd haddii qof walba lacagtiisa bangiga ugu jirta hal mar la baxo ayadoona dawladda ay bilowday in bangiyada ay ku amartay in la yareeyo lacagaha la baxayo si wadanka dhaqaalihiisa loo ilaaliyo sidoo kalena uusan hal mar dhulku gelin
haddaba waqtigaas madaxweynihii Mareykanka ayaa ninkan oo lagu magacaabay Roosevelt ninkan oo aanan markaas haba yaraatee la tusi karin John iyo sidoo kale ganacsadayaasha waaweyn ayadoona isla markaas ugu dhaxeeyo xoogaa dagaala laakiin maadaama waqtigaas dhibaatada jirtay aad u weyneyd waxaa qasab noqotay in dawladda iyo sidoo kale ganacsadayaashii waaweyn ay iska rabsadaan si ay isla markaas uga hortagaan dhaqaale darrada ku soo socota waddanka haddaba madaxweynihii Mareykanka waqtigaas Roosevelt ayaa mid wacay JP Morgan si uu isla markaas uga hadlo xalka arrintan haddaba John ayaa isla markiiba bilaabay sidii isugu keeni lahaa dhammaan ganacsadayaashii iyo sidoo kale hogaamiyaashii banki ee waqtigaas ugu sarreeyay asagoona isugu keenay meel qaas ah si ay arrintan uga wada hadlaan haddaba John qorshihiisan ayaa ahaa in la maalgeliyo bangiyada yaryar sidoo kalena aan haba yaraatee marnaba loo ogolaan inay eber soo istaagaan ayagoona bangiyadaas lacag badan lagu maalgelinayay si ay bangiyadaas ay u awoodaan in qof walba lacagtiisa oo la bixi karo midanoona isla markaas soo celin karta dhaqaalaha waddanka maadaama dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsan yahay lacagtaas bangiyada haddaba ugu dambeyntii fikraddii John ayaa la isku raacay ayadoona sidoo kale dawladda ay arrintii ka qayb qaadatay ayadoona halkii ku bixisay lacag gaadhaysa 25 milyan haddaba midda la yaab kale ayaa ahayd in ninka waxaasoo dhan isku dabaridaya sidoo kalena qabanaya hawshaas dawliga ah uusan ahayn nin madaxweyne ama siyaasi ah ee uu yahay nin 70 sano jir ah sidoo kalena ah ganacsade bangiila ah haddaba arrintan ayaa isla markiiba dhalisay hadallo badan ayadoona sidoo kale la isweydiiyey siduu hal nin awoodda intaas le ku yeelan karaa iyo waa maxay arrinta ku hoos tuugan sheekadan oo dhan sidoo kale midda hadalladaas sii xoojinaysa ayaa ahayd in sidoo kale uu ninkan ahaa mid caawimaad weyn ka geystay kasoo kabsashadii dhaqaale darre ee aadka u weyneyd taasoo dhacday taariikhdu markii 1893 midanoona sidoo kale John ahaa mid ka qayb qaatay haddaba waxyaabahaas oo dhan oo la isku soo arooriyay ayaa John hal mar dusha laga saaray ayadoona sanadadii xigay ay John midan ku noqotay caqabad aad u weyn sidoo kalena mar walba daba taagan dhanka kale caafimaadkiisa ayaa mid marba marka ka sii dambeeyo oo sii xumaado asagoona ninkan ahaa mid muddo sidii ku sii jira waxay haataba ugu dambeyntii taariikhdu markii aad March 31 JP Morgan ayaa ku dhintay magaalada Rome weliba asagoo markaas da'diisu ay 75 sano ayadoona uu xilkii halkii ka sii qaaday wiilkiisa lagu magacaabayay JP Morgan Jr. haddaba ha ilaawin haddii uu muuqaalkan ku xajab geliyay in sidoo kale aad ka war doonto sheekadii xisaab badneed ee bilyaneerkii ugu horreeyay casrigan iyo sida uu ku tacbay hantida intaas leeg haddaba haddii aadan muuqaalkaas hore u soo daawan ha ilaawin inaad hadda soo daawato adigoona ku dhufanay thumbnailka shaashada kaaga muuqanaya sidoo kale ha ilaawin in mar walba uu notification kuu furnaado si muuqaalku isla markiiba kuu soo gaadho mahadsanid